iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Burco laga hadalhayay inay ku soo bateen dad wax sixira isla markaasina qafaalanaya ayaa waxa habeenkii xalay magaalada Burco lagu sixiray isla markaana lagu afduubay hooyo Deeqa Cismaan inanay dhashay oo qaangaadha kadib afduubkiina la helay inantii oo cidlo lagu tuuray iyadoo ku jirta koomo haddaba dhacdadaas iyo siday u dhacday iyo waliba sidii ay u ogaatay in la kaxaystay inanteedii waxa nagu warbixisay hooyo Deeqa Cismaan duhurkii markii salaada duhur laga baxay ayay baxday inanba inantu mariyo u doonatay salaadkii casar markii aan waayay reerkii baan garaacay waxay dhamaanaan arag guri kale oo xaafadayada kamida baan qabtay waan soo waayay telefoonkeedii baan garaacay telefoonkeedina gurigu yaala wax telefoon aan ka hayaana ma jirto oo kale meel kale aan u doonana ma jirin oo dadkii aan garanayay waa soo wada dhameeyay marka maqribkii anigaan waxba hayno gaarigii baafinta marka diyaarsanaya baa la igu yiri inantaadiyo meydaba halkan taala saddex qof salaada maqrib baa lagu jiro iyo arkayay gabadh iyo riye xireenaysay iyo gabadh ilmo yar oo ay dukaanka u direetay sugaysa iyo ilmo yar gaarigu taxi cad buu ahaa gabadh iyo nin baa saarna xagga dambe laga tuuro xashiish baan moodaynay bay yiraahdeen dabeetana marka cabaar isla maqnayd ay qaylisay ayaa lagu soo yaacay markaas baa la garto aniga telefoon baa la soo diray isaasan ku soo qaaday wiliina iyo alaankaana sidii bay koomadii ugu jirtaa laba saddex irbadoodna way ku yaalin oo lagu muday ka dhaafna way bixinaysaa yaan la qalanay waa la qalayaa hay qalina intaas weeyaan hadalkeeduna wili maskaxdeedu caadi maaha wili wax maskaxdeedu caadi oo aan ka dhaaf ahayn ku hadlayso aan fahmaya ma jirto ka dhaafun bay bixinaysaa mar bay hadasho markii waxay tii anigoo soo socda labadii meel xaafadii ka soo baxay xaafadii aan ku sii socday aan wili gaadhin sii socda ayaa nin salaamay nin buu i weydiiyay wuxuu yiraahday gurigi hebelmee dabeetana ninkii baan anigu raacay inta markii ay tiri way koomada dub gashay dad xagaa tagtay markii aan meena waxay tii hooyo meeshii la igu qalay baan tigay meeshii waa talay qalayo bay tiri oo dadna ka dhaafkii bay ku soo noqotay wax waroo kale aan hayaana ma jirto marka arrinkaas maxaad u malaynaysaa arrinka dadka uu maaragtay aan wadaniga ahayn uu baa loo malaynaya dadkaasoo waa dadka sixirka lagu taabanayo dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dadkan cadawga anaga saaro sixirkan oonadka laga soo qabanayo 24 saac dadku dhacayana in laga qabto dadkan aan wadaniga ahayn laga saaro Aamina Siciid oo iyana ku nool magaalada Burco oo Star TV la hadashay ayaa sheegtay inay aragtay dadkaasi wax sixraya oo iyada lafteeda mar ay u yimaadeen oo waysa qabo ayaa gabadh qina khamaar xiratay oo gaagaab xiran oo maxay Mariya maxabaadka sidatay shadad yar buu ku sidato qalin ayay heshay markay heshay way salaantay markay saa ay salaantay أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا قبلي كار جاي أيان سيري قبضني وأتكلم الرسول ده وقف قرآن أيوة يدخل ساريهم بطايو إلى بكا قبطي تبعنا سامر كإستري ده فكرة كسر أي قبل ساعة فرصة وحركتي بنتي راس عسانك تبعنا هراء ده فتقني كده وسيد سي مرد وسيد سته وهراء وسعطة وحنوش شيء إسلامك waxaan magaalada ku jira ilaahay haynaga qabto anigu been baan u haystay waxaan islaha wax la iska sameeyo iyo waxna baleeyahay weeyaan waxaan tagna guriyihii caruurta laga habla laga gaxaystay waxa weeyaan waxaan leenahay il dheer ha loo yeesho dadka laga dhex qabto dad taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Cabdi Muuse oo arrinka Burco ku soo badanaya ee sixirka aan wax ka weydiinay ayaa yiri aad baan ku salaamayaa markii hore baa saxaafada markii xiga arrintaas وين ما أعرف ودكين السومالي وين كوب بضنته وركا والله شيء إن سحر يضل لو حين والله شيء لكن أنت عيدك بليس كبارد بدن بكوسمين إلى مكروان هود بجرنا وحي كصوب بحنا نتيجة دي ونشيك دون لكن إلى إمك وعن إمك كسي هرد عايم تشرو أنت عباشة حلبا نقصارا ما دام أنا عيدك أمنية baartaan baan ku sameeynaa dabagal badan baan ku sameeynaa wixii natiijo ka soo baxana bulshada soo bandhigi doona hadii alla yiraahdo laakiin imika wax allaala waxaan ka sii hordegayay ma jiro dadweynaha waxaan u sheegayaa cidii wararka nooca ah heshay ama ay ku dhacday inay noo soo gudbiyeen inay ciidanka amniga u yimaadaan ay hagaan
ay arrintaa wixii ay ku og yihiin ay ka bixiyaan maartay warkeyga. dhanka kale Sheekh Jaamac oo kamid ah culimada gobolka Togdheer ayaa maalintii shalay sheegay in magaalada Burco uu ku soo batay sixirka iyadoo siyaabo badan dadka loo sixrayo dadkana u soo jeediyay inay ka feejignaadaan. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.